loo sheego. Cabdi Bila aad baan u mahadsantahay. Waxaan jecelahay markaan inaan kusoo dhaweeyo Sheekh Idriis oo su'aalo fara badan ay oo gacanta ku haysto. Sheekh Maxamed waxaan ka hormaraya Sheekh Umal oo cabaar hawada ku jiray. Sheekh Umal fikirkan runtii muxuu ahay wuxuu leeyahay asbaab buu leeyahay asbaabtiisa waa in la isku dayo in la daaweeyo haddii la doonayo fikirkan in wax laga qabto asbaab buu leeyahay oo cuskanaya asbaabta cuskanaya waxaa ka mid ah dhulkii gaala joogta ciidamo shisheeyaa jooga waana wax runtii u noqon kara sabab u noqon kara in ay dhashaan afkaar yani quluwi iyo xadgudub iyo xagjirnimo ay ku jirto inay dhalato bay sabab u noqon kartaa saas daraaddeed waxaa asaas u ah arrinta noocan oo kaleeta in laga gungaadho ama laga salgaadho waddanka iyo dalka Soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ku jira in loo helo xal waddanka lagaga saaro waa kow waa mid labaad waxay u baahan tahay nidaamyada jira iyo dawladda iyo wixii waddanka nidaamka jiraay inay shariicada Ilaahay tabaaraka wa tacaala ay qaataan oo dastuurka dalku uu shariico noqdo maxaa yeelay daa'irta waxyaalaha u badan lagu khaldayo waxaa ka mid ah nidaamkii meesha ka jiray shariicadii buu ka tegay dastuurkii baa dastuur waxa la qaatay muxuu ahaa gaala la qaatay وبالتالي dadkani waa gaalo وبالتالي haday gaalo murtadin yihiinna waa in markaas lala dagaalamo oo dhiigooda la banaysto shacabkii baa soo galay isagana waxa la leeyahay dawladda noocaas u taageeray oo isagana dhiigiisu waa banaan yahay masaladu silsilad socoto marka halka isdaba taalay noqonaysa waxa xalka marka qayb ka noqon kara daruura sharciyana ah sidaan horeyba u sheegay in nidaamyada jira iyo dawladdu ay ku dhawaaqdo baarlamaankeeda iyo wasiiradeeda iyo madaxweynaheeda iyo nidaamyada kale gobolada ka taliyaba in si buuxda loo qaato Ilaahay sharcigiisa tabaaraka wa tacaala oo dastuur ahaan iyo dhaqan ahaan loo qaato iyaduna nooc xalka ka mid ah noqon kartaa waxaa nooc xalka ka mid ah noqon karaya runtii in badan oo dhalinyarada ka mid ah oo fikirkan aan isleeyahay way uun ka soo noqon lahaayeen ama waxay ogolaan lahaayeen in lagala niqaasho lagala doodo oo in laga wada hadlay xataa ogolaan lahaayeen waxaa sabab u ah inay sii fogaadaan oo afkaartan ku sii fogaadaan waxaa sabab u ah laana waxay rumaysan yihiin hadday dadkooda ku soo dhex noqdaan oo ummadooda ka mid noqdaan inaysan badbaadaynin oo gaalo laga iibsanayo oo gaalada raadsanaysa muxuu ahaayay xoolaha ku raadsanaysa ay laga gadanayo loo dhiibayo cunsurkaana waa inuu meesha ka baxo oo muxuu ahaayay ruuxii hadduu fikirkii ka soo noqdo ama ummadiisa ka mid noqdo inuu ammaan helayo oo nabad helayo oo ummadiisa ka mid noqonayo oo gaalo iyo balaayo kaloo eryanaysa aan muxuu ahaayay loogu kaalmaynin siday gacanta ugu dhigi lahaayeen damaanadoo kaleetaana waa inay jiraan waxaa qayb ka noqon karaya xalka fikirkan qaar waan soo sheeganayo in culimmada dowrkoodiiyo kaalintooda la siiyo horaan uga hadlay waxaa qayb ka noqon karaya runtiisaan isleeyahay oo muxuu ahay iyada lafteeda xalka qayb ka noqon karaya intaan lagu boodin hadday diidaan oo wax walba diidaan maxaa lagu sameeyaa intaan la gaadhin in bal horta asbaab fara badan iyo qorshayaal fara badan oo ka horeeya tillaabooyin hore in la qaato tillaabooyinkaasi wax fara badan bay xallin karaan haddii markaa kadib ay arrintu ay noqoto karaamo ma leh oo si walba intii loola hadlo oo si walba loola niqaasho oo culimada dowrkoodiiyo kaalintooda la muujiyo oo wixii ay haysteen ay ku dhaganaanayo shubahaadkii laga xalliyo laysku dayo in laga qanciyo markaa kadib ay ku madax adaygaan fasaadkana uu sidaa u sii jiro masaajidii ay qarxinayaan oo culimadii ay laynayaan oo mujamacaadkii meelihii ummaddu isugu imeenaysay ay muxuu ahay qarxinayaan oo ayna waxba badbaadinaynin oo muxuu ahay ay wax walba ay fasaadinayaan hadda markaasi waxa weeye masale sharciya weeyaanoo firaqa noocaas oo kala qaabka loola mucaamaloodo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa markaa ku cadahay qawaacid waaweyn oo sharciyan way ku soo aroortay go'aan adag baa markaa yaala oo xaalad dambe oo waxay iimaanaysaa aakhiru dawaa alkay daawo waxa ugu dambaysa gubitaanka yani xaalad laga maarmaan ah oo marka hore in lagu degdega aysan ahayn
laakiin marka wax walba la waayo in la isticmaala ay noqon doontaay way jirtaa laakiin hadda waxaan isleeyahay waxaa ka horreeya wax fara badan in la qaato oo tillaabooyin ka horreeyaa jira oon kuwa aan tilmaamay ka mid a oon isleeyahay wax badan bay xallin karaan oo waa hagaag waa gartay waraysigaas dheer intaas ayaanu kusoo koobaynaa sheekh umal uu siiyey tv-ga universal barnaamijkiisaan arrimaha bulshada special oo bishii mar soo gala intaanana khadka telefoonada dib ugu noqon sheekh maxamed su-aal baa lagu weydiiyey 3 sano ka hor waxaa la yidhi su-aashaas ilaa hadda warkeeda lagama hayo alxamdulilah sal allah calaa nabiyina maxamed rasul horta walaaluhu xaq bay u leeyihiin dabcan inay culimadooda wixii dhaliil ah usoo jeediyaan culimadu dadkay ka mid yihiin waa la dhaliili karaa horena waan u sheegay dadaal bay ku jiraan badan oo wax badan oo dadku markay hurdaan ama danahooda khaaska ah ujeedaan waxaa laga yaaba danihii ummadda inay ku jiraan laakiin waa wax dhici karaa arrinkaasu laakiin mar walba waxay caddeynayeen dhiigga muslimku inuu xaaraan yahay inaan la wada dagaalamin dalku inuu dowladnimo iyo u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn in loo baahan yahay marka dee likulli maqaamin maqaal maqaam walba wuxuu leeyahay qaab looga hadlo maanta waxaan filayaa in wax badani culimada laftigooda waxaa laga yaabaa imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaa waxaa la yidhaahdaa madhab alimaam aw fataawa alimaam fi lciraaq wa fataawa alimaam fi misr yani fatwada sheekha way iskhilaafaysaa min makan ilaa makan min waqti ilaa waqti xaaladda suu hadba u qiimeeyo marka waa laga yaabaa culimada in badan oo kamid i xataa waqtigaas siday u qiimeynayeen ashabaab inay maanta ka duwan tahay marka waxaan leenahay insha allah culimadu horena way ugu kulansanaayeen laakiin arrimaha asaasiga sidaan sheegay ummadda dhiiggeeda in la ilaaliyo sharafteeda la ilaaliyo khilaafka laga daayo dowladnimo in la helo iyo kala dambeyn iyo nidaam arrimahaas maqaasidii shareecada inay tahay lanno shareecadan waxay u timi diinta in la dhowro nafta in la dhowro maalka in la dhowro caqliga in la dhowro cirdiga in la dhowro ayay shareecadan ilaahay usoo diray marka arrimahaasna waa daruuri taas intaasaan ka leeyahay middan ku saabsan ninkii odaga ahaayo si sariica haddaan oo ibn cabaas odaga la magac baxay wuxuu yihi waxaa kan salafiya iyo wahaabiya keentay buu yiri oo dhashay dagaalkan iyo seeftan dadka dhiigooda la adeegsana maaqaan hadda ma rabo dee inaan si gaara ugu leexdo laakiin arrinkaasu fikir salafiya kama iman fikirka salafiga ah salafku waa salafkii in loo noqdo saxaabadii iyo taabiciintii saas way macnihiisu oo kitaabka iyo sunnada loo fahmo siday u fahmeen marka waxaan filayaa qoladaas hadda isagu uu magacooda ku hadlayay oo dadka wahaabiya ama ku sheega ama ha ahaado jamaacada nimankii suufiyada la oran jiray ama ha ahaado qoladii kale lagu sheegi jiray ma rabno inaan hadda dib ugu noqono inaan niraahno iyagaa dadka masaajida dhexdeeda ku toreeyin jiray oo sida shabaab oo kale leanno fikriga quluwiga ah sidiisaba quluwiga waa ku talax tag marka talax tagaasu mar dhinac suufiyu u bixi mar dhinac wuxuu u bixi khawaarij buu u bixi mar dhinaca kaleetu u bixi oo dad maaragtay taqdiisiye maxaan kuu sheegaa dadkuba wax gaaloobi karaaba ma jiraan oo dadkao dham iimaankooda waa isku mid u noqonayo oo nimanka xukaamta ka dhigta dad un ay hadday xaq iyo baatil sameeyaan ku daba tukada taas yani qalad wey fikirka salafiga sidaas ma aha saxaabadii nabiga alay sl taabiciintii dadkii wanaagsanaa culimadii kitaabka iyo sunnada sidii saxaabada u qaadatay u fahmaya kaasuna marka ma noqdo laa arafkaas walaa arafkaas kasoo horjeeda marka dadkii masaajida ku dili jiray iyaguba waxay quluwi waa quluwigaas quluwiga suufiyada quluwiga khawaarijta wixii quluwi oo dhan baan inaan kasoo horjeedna cid gaara ugama soo horjeedno ma garatay waa taasna in la saxo waaye culimaduna saan sheegay arrimahan ra-iisiga ah way ka midaysan yihiin dhammaantood xarakaadkan waxyaalahan xarakaadkaana isma banaysan anigu intaan ogahay qolo quluwi ku kacda mooyaane sida qoladaas hadda wax tooriyeynaysa ama qoladan wax dilaysa mooyaane islaax baa jira kadaa jira ictisaam baa jira maxaan ku itixaad baa jira hebel baa jira jamaacadku hadday khayr ka shaqaynayaan tabliiq baa jira kada baa jira wax la diidan yahay maaha laakiin sheekh maxamed ayuha adaa ku watee markii
khawaarij iyo la isbarbar dhigo culimmadii hore oo suufiyiinta ama xadreyn jirtay culimmadii hore suufiyiinta ahayd cidna ma leyn jirin in bariiskooday cuni jireen dadkay ka mid ahaayeen gabdhahay meherin jireen carruurtii qur-aanka loox ku bari jireen caqiid ahaan isku mid ma ahan ha maya waa sax wey waxaan laakiin uga jeedaa waxaa jiray suufiyadu qaar ay ku talax tagtaa oo hadduu qofku yidhaahdo tawxiidka iyo ilaahay kor buu jiraa u arkaya gaal inuu yahay ya allahu fawqa samaa'i fawqa carshihi haddaad tiraahdo masaajidka kugu dilaayo toorey inuu ku geliyo في كل مكان موجود اسagoo ha في كل مكان موجود maxaa arrinka u leedahay culuwiga ilaahay buu diidan yahay ilaahay inuu korjo markaas toorey masaajidka ku gelin way dhacdo culuwiga kaas way kaasan ka wada dilka naam marka fikirkan sidii culimadu yiraahdeen waxa waa khulaasadiisu soo noqonaysa mar walba ku soo noqonaysa wixii fikrad in loo waajiho weeye oo la cadeeyo oo umada loo qeexo fikirkaas inaanu ahayn fikir saxa inuu yahay fikir qaloocan inuu yahay fikir soo jireen ah inuu yahay fikirka khawaarijta oo waagaas ka soo bilowd oo dhiiga dad muslimiinta banaysta fikirka qaldan oo waqti walba jooga taas in fikir lagaga hortago way oo loo naseexayo dad inoo naseexan karo oo umada loo cadeeyo dhanka kalena waa in waxa kan qorshaha ah ee umada cirib tirkeeda ah laana ma wada ah fikir qaldan saan sheegnay waxa ku jira qorshe cirib tir ah kaasin xoog la iskaga qabto gacan ummadoo dhan ay meel uga soo wada jeesato wey waa gartay sheekh maxamed waxaan rabay inaan ku weydiiyo oo muhiim ah aan xusna yani dadweynuhu inay ogaadaan aanu jecelnahay al-shabaab meelaha ay haysan jireen hadda waayahan dambe iska bedela laakiin waayihii hore kala dambeyn baa ka jirtay burcadbadeed ma jooginin maxaa la yihahdaa jaadwala ma jooginin nimanka la yiraahdo isbaareley ma jooginin meel kastoo ayagu joogeen nabad baa ka jirtay marka kulligood xumaan ma wada lahaan wanaagna waa leeyihiin wanaagooda maxaa loo sheegi lahaa loo soo dhaweyn waaya xumaantooda keliya loo sheega wax walba wanaag iyo xumaan bay leeyihin waa garta oo ma jiro shar wada ma hadayo wax wada shar ah culimadu waxay yidhahdaan salafka ilaahay subxaana watacaala ma abuurin wax wada shar ah xataa waxyaalaha laynaga xarimay yani waxyaala manaafic qaarkood ay ku jiraan baa jira laakiin markii dararkooda iyo dhibkooda uu ka bato ayaa loo xarimaya marka maslaxada mafsadadeed baa ka badan fasaadkeedii baa ka badan dhibkeedii baa ka badan marka waa sax saad sheegayso meelihii ay joogeen dadku inay baqayeen oo wax tuuga ah aanay jirin jidku aamin yahay waa wax jira weeye waaqic ah oo jiray waaye laakiin hadda dhibkii kalaa ka batay oo waxaa jiraya qof isla meesha ku nool oo dadkii kale ammaan buu ka yahay lakin shabaab ammaan baanu ka ahayn isagoo masaajid ka soo baxay ama masaajidka u socda ba xabad lagu dhifan shabaabkii meesha xakumay baa ku dhifan marka taasaan dad badan haddana isugu aaminahayn oo dhulkii loo sii camirahay oo loo imanay marka ammaankaas wuxuu ahaa ammaan dadku ay kala ammaan yihiin dadkoo kala ilaalinaysa laakiin adigii kama ay ammaan ahaa sababtoo ah maxkamad ay kusoo taagaan iyo cidi kaaga ashtakoodaan ma haystaan cidna isku soo kaa aamini mayso si fiican waa gartay waxaan jeclahay inaan khadadka telefoonada dib ugu noqono